Gabdho Soomaaliyeed oo falkii ugu xumaa ku kacay magaalada Kampala iyo ninkii ay soo kireysteen oo fadeexadeeyay. Gabdho dhalinyaro ah oo waalidiintooda ay ugu direen magaalada Kampala ee caasimadda Uganda in ay wax ka soo bartaan isla markaana ay bari ka maalin anfacaan waalidkood iyaguna ay horumar gaaraan ayaa waxa ay ku kaceen falkan la yaabka leh isla markaana keentay in ay ku ceeboobaan balse ilaa iyo hadda waalidiintood iyo eheladoodu aysan ka warqabin warna aysan ka haynin waxa ay gabdhahoodu sameeyeen. Gabdhahan oo dhiganayay jaamacadda ugu weyn waddanka Uganda ee Makerere isla markaana deganaayeen guryaha loo yaqaan hosteliska ee ay degaan ardaydu oo aan loo ogolayn guryahaasi in waqtiyada qaar la galo ama laga soo baxo ayaa xilli uu furan yahay hostelku waxa ay soo kireysteen nin Ugandese ah si ay baahiyo gaar ah oo ay qabeen ay uga fushadaan maadaama nin la'aani ay haysay xaaladooduna ay adkeed. Gabdhaha falkan ku kacay oo 3 gabdhood ah ayaa 2 ka mid ah waxa ay soo kireysteen ninka Ugandese-ka ah isla markaana ay gudaha u soo geliyeen hostelka gaar ahaan qolka ay deganaayeen. Ninka oo gabdhahan qabowga iyo qooqo halkaasi ku dilooday abqada ka jafayo sidoo kalena lacagtii ay kula heshiiyeen 2 gabdhood ee keentay shaqaysanaya ayaa waxa ugu imaatay gabar saddexaad oo isla meesha la deganeed waxayna iyaduna dalbatay in sidaasi si lamid ah ninka uu ugu shaqeeyo. Markii ay hawshu soo dhamaatay ayay gabdhihii ninka siiyeen 2 gabdhood lacagta uu ugu shaqaynayay ee horay ay ugula soo heshiiyeen balse ninka ayaa dalbaday in 3 shaqo oo ah gabadha saddexaad ama 3 gabdhood shaqada u qabtay in la siiyo lacagtooda waxayna u sheegeen in aysan haynin lacagta saddexaad ee gabadha saddexaad shaqada uu ugu qabtay. Balse fashilka ugu weyn ee dhacay ayaa yimid kadib markii ninka Ugandese-ka ahaa uu ooyin la hor fadhiistay gurigooda iridooda isla markaana ay isugu soo baxeen dadkii goobta ka agdhowaa oo isugu jiray Soomaali, Ugandese iyo ajaanib kale iyadoo xitaa booliisku goobta ay yimaadeen. Booliiska oo xabsiga u taxaabi raba gabdhahaasi maadaama ay iska bixi waayeen lacagtii uu shaqadaasi ugu qabtay ninka Ugandese-ka ah ayaa waxaa qaar ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed iyo ajaanibtii kale ay lacagtii ka bixiyeen iskuna dardareen sidoo kalena ay ka bixiyeen gabdhaha Soomaaliyeed ee falkaasi xun ku kacay iyagoo wejigabax aad u weyn kala kulmay falkaasi ay ku kaceen gabdhahaasi balse aysan waalidiintood iyo eheladooda aysan ka warqabin. Gabdhihii oo ku ceeboobay hostelka ay deganaayeen iyo bulshada dhexdeeda ayaa laga ceyriyay hostelkii waxayna u guureen xaafad aan laga aqoonin si ay wejiga u beddeshaan. Ugu yaraan 5 qof oo xogogaal u ah kiiskan goobjoogna ahaayeen ayaa ii xaqiijiyeen balse waxay diideen in aan adeegsano magacooda iyo codkooda kiiskan oo xasaasi ah aawadeed. Sidoo kale waxaan ka gaabsanay inaan baahino magacyada iyo halka ay ka yimaadeen Soomaaliya gabdhahaasi dhacdooyinkan ku kacay magaalada Kampala. Dhacdooyinkan waxa ay Kampala ka dhacayaan iyadoo dhowaan mid ka mid ah jaamacadaha dalka ugu waaweyn lagu soo oogay kiis la xiriira in macallimiinta qaarkood ay ardayda weydiistaan in ay u galmoodaan si ay dhibcaha u siiyaan una kordhiyaan. Kampala waxaa ku sugan tiro badan oo Soomaali ah qaarkood waxay u joogaan waxbarasho, ganacsi iyo kuwa doonaya in ay ka sii dhoofaan. Warbixino kale iyo dhacdooyin kale ayaan idinla wadaagi doonaa maalmaha soo aadan haddii eebba raalli ka noqdo.